ma ahan dadka lagu yaqaano inay dadka iska soocayaan ama social media ay ku dheganaadaan qof walaalkiisa ama saaxiibkiisa marnaba ma ahan bal daawo tor muuqaalkan hadda ka baqaa markaan wajigiisa arko labada telefoon ba asaa qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah hadii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaban karaa please telefoonkan ay dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub magacaygu waa Cabdirasaaq Xaashi halkaan idin haynaa arrin iyo aad looga argagaxay oo mataqaanaa weli aanan lahaynin jawaabteeda saxda ah ugu dambeyntii waxaa leeyahay farxiyo fiiska waxaa la wareegay oo mataqaanaa awood military ku qabsaday dhawaan wiilkii guursaday oo lagu magacaabo Mubaarak October Mubaarak waxaa lagu haystaa inuu farxiyo fiiska uu xiray oo mataqaanaa meel ku xirtay ayna la'aantiisa qofna la hadli karin ay la'aantiisna haddii qof soo waco ay leedahay la hadli karaa qofkan muuqaalkan sii sheegareeya like saara comedy ka soo bixiya wax jira ilaahay waa og farxiyo kaba yare oo ah fanaanad Soomaaliyeed oo caan dhalay ah oo ayna farxiyo fiiska ay yihiin qaraabo ama saaxiibo aad iyo aad iskugu dhow ayaa ka soo hadashay muuqaalkan kadib marka ay soo sheegtay in farxiyo fiiska ay la xiriirtay bal maxaa dhex maray bal ila daawo hadda ka baqaa markaan wajigiisa arko labada telefoon ba asaa qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah hadii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaban karaa please telefoonkan ay dhahay ka waran idin xulug xuno jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroola ah hadii farxiyo fiska ka waran ay telefoonkayga ma qaban karaa ay leedahay ka waran bawarkaas wuxuu yahay bawarkaas marka waxa waaye fiska insha Allah ilaahay wandhay waa ka soo furfura ayaduna sida qof kasta oo farxiyo fiska shalay ma dhalanay wajigeeda yaqaanayna ma yaqaan farxiyo fiskana indhaheeda bis fiiriyo farxiyo fiska markay la soo galo ma aragtay TikTok yani arrintan aad iyo aad ay u xun tahay waana yani arrin ay farxiyo kabar yare ay ka soo hadashay ma ahan wax sahlan inaysan farxiyo fiska iyo farxiyo kabar yare aysan ka dhaxaynin wax xumaan ah ayna ka dhaxaynin wax dagaal ah ayna dhex mari karin ay yihiin laba qof oo walaalo ah oo saaxiibo ah oo fanaaniin ah oo aad isku jecel aadna u xiriir jiray laakiin maanta waxay dareemaysaa farxiyo kaba yare in walaasheedii arrinta ku dhacday ay tahay arrin aad u weyn arrin u baahan in loo bandhigo culummada arrin u baahan in loo bandhigo mataqaanaa waxyaabo badan oo khaldani jiraan arrintan horta ilaahay waa og wixii jira laakiin waxaa la leeyahay oo farxiyo kaba yare ay leedahay inay la xiriirtay farxiyo fiiska markii la xiriirtayna ay ka codsatay ay dhahdo abaa ninkeyga wuu maqan yahay kulama hadli karo ninkeygi oon joogin bal waa ka muuqaalkii ay farxiyo ku cabaadeedo ma ahan farxiyo kaba yare qof intuu iska soo hadla baraha bulshada soo gala ee mataqaanaa iska naanaceeya wuxuu rabo sheega ma ahan dadka sida qaarka ee youtubada ama fanaaniinta ah oo mataqaanaa dadka waxaa arkaysaa farxiyo kaba yare walaasheena khaalida fanaaniinta Soomaaliyeed ayadoo la caynayo oo baraha bulshada lagu wada haysto inaysan xataa mararka qaarkood ka soo jawaabin ayna ka hadlin ma jirto ujeeddo ay u weerarayso Mubaarak October oo fanaan yar ah oo guursaday wali walaasheeda saaxiibteeda qaaliga ahayd farxiyo fiiska ma jiro sabab ay ula dagaaleedo laakiin waxay dareemaysaa inay jiraan caburin oo adag oo lagu hayo oo mataqaanaa xagga fal lagu sameeyo ah macnaha la sixiray oo mataqaanaa xoog lagu haysto oo arrintiidaas ay dhibaato badan ka taagan tahay ay ka hadlaysaa bal ila dhageyso aqoonta dadka u leh ee mataqaanaa sida Abdiliibaan oo kale muxuu ka yiri farxiyo kaba yare bal ila daawo Abdiliibaan iyo sidoo uu farxiyo kaba yare uga falceliyay gabadha farxiyo kaba yare leeyahay wadiinu rabbul kaaba gabar ka xaniya waaweyn social media isku jirin gabar ka xaniya waaweyn oo ka aqli badan balaaya la gaaban tahay wadiinu rabbul kaaba aqliga ku jiro badankood inuu isku jirin waa gabba
وجبا ورجبان أغلي كتشرو وحي أكتها راشين كان سومالي محمد أو دنا عنتو سومالي محمد أو دنا قات ما أنت أدي العر يلا قحر أديرك يا أبتكا runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay arrinta ku dhacday Farxiyo Fiska haddii arrintaas ay run tahay waxaan leeyahay gabadha Soomaaliyeed ee walaashiin ah ha loo gargaaro si yacni wadaadda loogu geey lahay ama qoraan loo saari lahay ama arrintan loo baari lahay falankeed hala galo reer Somaliland ayaa arrintaa u taala inay ka soo jawaabaan eedeynta loo soo jeediyey ninka la yidhaahdo Mubaarak oo fanaan reer Somaliland ah mataqaanaa degan Hargeysa ku dhashay Hargeysa aabihii abwaan yahay gabadha uu guursadana ay tahay fanaanad Ilaahay baa nagu wixii jira kolley Farxiyo Kabayare waxa ka dhawaajiyay kabta xaaji ma ahan wax aad iyo aad u sahlan waa arrin aad iyo aad u adag oo u baahan in laga daba tago oo laga hadlo oo laga ogaado siday wax u jiraan iyo halkay wax ka qaldan yihiin aniga ma u maleynayo inay Farxiyo Kabayare intii iska soo baxdo ee idaacad soo fadhiisato ee iska soo hadasho ee Farxiyo Fiska weerarto oo wiilka qabo weerarto taas aniga ma u maleynayo mana uga baran haddii aan ka baran lahay Farxiyo Kabayare oo dad badan ku dhagan oo caytameeda oo social media dhex taagan waxaan dhihi lahaa waa macquul way isdagaali karaan laakiin ugama aana baran marka sidaas awgeed muuqaalkan sii shargareeya dhammaan ummadda gaarsiiya Mubaarakna waxaan leenahay haddii arrimahan ay wax ka jirin fadlan ka soo hadal my brother iska soo reeb Farxiyo Fiska ha soo hadasho ha iska soo reebto wixii jiray Ilaahay baa og kolley gabadha sidii la leeyahay araggeeda buu isbedelay araggeedii shalay iyo kii maanta isma lahan dee Ilaahay baa og daruufaha jira iyo waxyaabaha jira cidna ma oga laakiin waxaan leenahay Mubaarakow hadday kolley wax jiraan wixii waxaa la maqal inaan qaaday kama daba yartee iska soo reeb arrintan iska soo reeb sixirka ah arrintan falfalka ah oo la leeyahay Mubaarak ayaa sixiray oo xoog ku haysta oo la'aantiis ma hadli karto oo taleefanadii asaga haysta waxaasoo dhan oo eeda adiga ayaa lagu soo jeedinayaa marka sidaas darteed waxaan ku leeyahay my brother beri ka noqo oo adiga iyo tolkaagaba magacooda iyo sumcaddooda kor u qaad iyo sharaftooda sidii hore u sheegay weji fanaanka wariyihii weynaay wuxuu gabadha reer baa qaba reerka qabana waa reer caan ah oo magac sharaf iyo wax walba leh oo wanaagsan oo qiimo badan oo Soomaaliyeed marka adigana waxaa laga rabaa inaad iska soo dhaqdo arrintaas war muuqaalkayga hala gaarsiiyo reer Somaliland gaar ahaan Mubaarak October iyo familigiisa iyo beeshiisa dhammaan hala gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wanaagsan